ummad waxa ugu liidata mid dhulkeeda dhulka hooyo dhulka aabo lagu adoonsado ayaa ugu liidata Soomaaliya qirta cunugaas masaakiinka ah ee caseeyaha ah ee laamiga dhinaciisa fadhiyo askari Amazon u yimid oo Uganda ka imaaday askarigaas xitaa dal bad leh kama uusan imaanin $700 iyo in ka badan ayaa askarigaas bishii u qoran uu qaataa cunugaas waxa laga yaabaa inuu agoon yahay oo uu isleeyahay kista yar ee digirta iyo caanaha aan ku soo gadan lahayd hooy ugu caawa masiibadaasana haysato Soomaaliya aqirano ina failed aan noqonay moraalkii naga dhintay umad dhimatay aan nahay horta aqirano intaas bi qirin kartid daga maad waxa u muuqataa Twitterka in maarta maxaarada Ethioopiaanka waxay u fara badan ay soo dhigayaan oo waliba handadaad u badan iyo sidoo kale xogaa ay u muuqataa yani boota xagga afkan inay jirto ay u muuqataa arrinkan wuxuu la xiriiraa labada diyaaradood maanta dawladda Masar ay ka soo dejisay magaalada Muqdisho xaalku aniga koley maanta waa ila kacsan yahay intee ku dambeyn doontaa mid kale Ethiopiaanka maxaa u furan oo wadooyin ah aan raba barnaamijkan aan meesha ku falanqeeyo hadduu Ilaahay idmo waaya labada diyaaradood koley way soo degeen Ethiopiaankii horta waxa ka warsugeynaa hadal toos ah inuu ka soo yeero wasiirka arrimaha dibadda ama Abiy Ahmed wuxuu u muuqataa caawa hadaysan hadlin bari way hadli doonaan koley waxay dhihi doonaan Masar duulaana nagu soo qaaday oo waxay dhihi doonaan dalkii noogu dhawaay oo Ethiopia ugu dhow xuduud la leh oo ciidamo Masar la keeno ani ahaan hadda idin saadaalay aqyaaray ani waxay ila muuqan doontaa in Ethiopia ay u dhaqmi doonto sida in Masar ay ku soo garguuratay agteeda ay timid ilaa labadooda xuduud ma le mogtahay marka si u fiirisid Suudaan ku dhex jirto dhul aad weyn oo aad u balaaran ayaa Ethiopia iyo Masar ku dhex jiro marka Soomaaliya hadii ciidamada Masar la keeno dhageystay waxay noqon doonaan markii ugu horeysay ciidamada cadow ee isku yihiin maxaarada ee xuduudka imaadaan ama soo dhawaadaan Masarna way ogtahay kas iyo maagay u sameysay horta waxa leeyahay Xasan Sheekh runta idin sheegay Xasan Sheekh madaxweynaha waana marna waa cananta marna waa amaana ileen asaba afkiisa nooga sheego maal dhaxal saa ku dhahay dawladda canaana ay leedahay in la toosiyo wax nooga sheego maanta waxa leeyahay tilaabo waxa qaadeen cajiib ah waaya horta saadaalinteedu ugu horeyso waa in bari ama bari dambe waxa noqotaba xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopiaanka uu war ka soo bixi doono warkaas oo u muuqan doono mid ay anaga noogu handadayaan hadda Soomaalinahay oo xogaa booto iyo cabaad beesha caalamka ay u dirsan doonaan oo ay dhihi doonaan in ciidamada keeno Soomaaliya anaga ayaa weer lagu soo qaadaa yani Ethiopiaanka inuu ka dhigin iga weer lagu soo wado oo kale waaya intaas oo ayaga sara oboleena beesha caalamka maxay dhihi doontaa aniga meeshaas ilaa hadartaan yani ku dhiganahay waa arkayay mid xun oo safiirka Mareykanka uu Ethiopia u dirsaday waa hore nin Mareykan ah oo safiir Ethiopia ka ahaan jiray oo quuqla Soomaalida nacab oo Twitter ka soo fariisto ugu jira magaciisa midin sheegay waa dulin ninkaas waa ninka dhahay Ethiopia waa dal fiican Soomaaliya waa dal xun oo taas u dhahay way kaas xagga naga dhig beesha caalamka kulley dhaxdhaxaadinta Ethiopia iyo Masar waa ka daaleen Mareykan iyo Yurub way ka daaleen dhaxdhaxaadinta Ethiopia iyo Masar muddo 10 sano ah ayaa dhaxdhaxaadintooda lagu jiray Masar iyo Ethiopia hadda waxay ogaadeen wax aanan xabad iyo baazuuke iyo 7 iyo daba jeex waxa ahayn inaan wax la iskaga qaadi karin labadooda way ogaadeen Ethiopia way ogaatay Masarna way ogaatay Masar hadda koor 10 idin dhig barnaamijkan Soomaali Cowboy horta waa 10 maaldahaas waxa idin la qaybsaday ninkii ahaa muxuu ahaa Jamaal Cabdi Naasir waa idin la qaybsaday Jamaal Cabdi Naasir siyaasad wuxuu u dejiyay Masar oo dastuurkooda ku qoran oo ah aggressive Masar ma taqaano jahanjih Masar siyaasadeeda waa aggressive waay jahanjih iyo walaalaheen waay iyo kuma maqlaystay waa aggressive Ethiopia Masar waxay kula dhaqantaa aggression waa boto iyo dagaal marka Ethiopia runta isku sheegno anaga hadda waxay noogu soo fafakanayso runta idin sheega Soomaaliya niman yahow wax dhageysta anaga Ethiopia waxay noogu soo fafakanayso hadda koorna toos idin soo fariista madaxweynayaal ama ra'iisul wasaarayaal adag oo hadal fiican ku hadlaayo sida Jamaal Cabdi Naasir iyo midkaan hadda Masar u joogay war hadal dadka dadku kaaciliya siyaasadda marka tahay meeshaan xoolada ma kala gadanayo hadalka adag waa muhiim المهم إثيوبيا والسكعلية
سيسي نينك الله هذا مصر وجوجو وانين هذا الأذق وانين جحن ما وايه شكذا وحامق لي دقيقة كور إن إثيوبيا بلاد إن عيد مصر رابطه لكان سومالي قلبت حرر جيجا ولي بو أنا عبسيت هذا أقرأ إدين شيء تلابو إثيوبيا لقيا بإنه قادو أو أنا أصليه هو قاضي دون تا أيان إدين شيء دولة الصومالي أنا وح جوابت بحين دونتو مدحض أنا حدا أنت أقصي شيء هرت إثيوبيا وح كعبسي قبا إن حدود كعيدما إيه صار رابطه أبي أحمد موسى بيحي ووعو أدس أبابا لإسكولتاغو أو وكل واقع إن كان أبي أحمد وكل واقع إن موسى بيحي يسومالي لان ودل أقونصدي إثيوبيا أو سر رسمي سومالي أقونصتي إسلام مالين قلنك كدوغان بقولال كونو عيدما إثيوبيانا إن حدود كسومالي لان كسو قدبان لانك بدي إيه آذان تاسا هورتا كعبسي قبا فرصدها وحاس يكون عكران أنا وحاس إكرا و 55% هذا نعدو سياسة السيدة هذا wax walbo loo diyaar garooba haday dhacdo iyo hadaysan dhicin ba madaxdeena villa Soomaaliya fadhiso hal jawaab u furan hadii arinkaas lagu dhawaaqo Xasan Sheekhow Wasaar Xamzo kii gudoomiyaha baarlamaanka Madoow hal wado ayaa idin banaan oo ah in hadii Abiy Ahmed uu ku dhawaaqo aqoonsiga Soomaal wala horta dadka reer Soomaaliland waa rigeeda waa dadkaas laakiin hadduu ku dhawaaqo madaxda Muqdisho fadhiso waxa u furan inay dagaal ku dhawaaqaan u furan dada soo qori doono muxuu dagaal ku dhawaaqaa ma ciidan oo haaya ma intuu haaya idinka dhiidontiin war afka xitaa uga dhawaaq dagaalka ku dhawaaq declare war ma bad waadi talaabadaas ee qaad Ethiopia maayla qadiidaada ayaa lagu soo xadgudbay Ethiopia hal mid ka cabsi qaba arrinkan Masar inay fursad ka dhax aragto oo caalamka ay dhahdo waa li ugu soo duulay Masar ciidamadeeda xuduudka ay imaanayo beledweynaha ay imaadaan Baydhabo ay imaadaan dhanka Puntland ay imaadaan ana li soo dhawaanooya duulana li ugu yahay marka preemptive qaada talaabo ka sii horeyso talaabadaas qaada Soomaaliland ciidankeeda gelina badaas qabsana sheeko noocaas inay dhacdan waa laga yaabaa marka Soomaaliya aniga waxa iga dardaaran ah scenarios ka waxyaabaha dhici rabo horta